kulan wacan oo wanaagsan dhageystayaal saaxiibayaal meel waliba joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha waa 1 Abriil 2023 dhageystayaal waxaan gudagalaynaa qaybihii hore barnaamijka ciyaaraha kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa dhulka ku jeeday kooxda Liverpool ay ku burburisay 4-1 kulan ka dhacay Etihad Stadium. Manchester City ayaa 4 gool ugu bedeshay Liverpool oo gool la hormartay waxayna soo yareysay farqiga dhibcaha 4 gool oo ay qaybsadeen Julian Alvarez, Kevin De Bruyne, Igele Gundogan iyo Jack Grealish ayaa Manchester City ku maqoonisay Liverpool oo nasiib ku lahayd in goolal intaas ka badan laga dhalanin. ciyaartan ayaa qalqal badan ku soo muuqatay ciyaartoyda Liverpool oo la mooday inaysan diyaar u ahayn kulankan ayaa waxaa daqiiqadii 17 gool u dhaliyay xidiga reer Masar ee Mohamed Salah heerada ganaaxa durbadiiba laad oo ka helay Janis oo abuuray xidiga reer Portugal ee Diego Jota balse daafacyada Manchester City ayaa waxba ka qaban waayay laadkii uu tuuray xidiga weerarka u ciyaara kooxda Liverpool ee Mohamed Salah 10 daqiiqadood ayay ku qaadatay Manchester City inay ka keento goolka barbaraha waxaana kubad oo dhinaca bidix ka soo dhiibay xidiga reer England Jack Grealish oo goolka ku biiriyay ama goolka uu dhex dhigay xidiga reer Argentina ee Julian Alvarez iyadoo qaybta hore ee ciyaarta ku soo dhamaatay barbaro 1-1 daqiiqadii labaad ee qaybtii dambe ay Manchester City gool degdeg ah ay ku niyad jabisay kooxda Liverpool iyadoo kubad dhinaca midig ka soo jabiyay goolcaawiyaha mashiinka qadka dhexe kooxda Manchester City Kevin De Bruyne oo waardiyaha ka yahay Alisson Becker taasi oo ka dhigtay ciyaartaasi 2-1 ay ku hogaaminayso kooxda Manchester City. ma jirin bandhig Liverpool ah iyo qaab ciyaareed lagu yaqaanay intuba waxaana kaliya lagu garanayay wajiyada ciyaartoyda iyo garoomada inay iska dhex taagan yihiin balse ma aysan u muuqan Liverpool shay la yaqaanay ee ciyaarta dardar badan ku soo galay jirtay wuxuu macallin Jurgen Klopp madaxa u ruxo mar kale ay soo taabtay shabaqa kooxda Manchester City. kabtaanka kooxda Manchester City Kele Gundogan goolka saddexaad u saxiixay kooxda Manchester City daqiiqadii 53 isaga oo helay kubad difaaca Liverpool isaga saari kari waayeen oo goolka hortiisa mareysay taasi oo lugta midig si fiican uga helay kuna toogtay Alisson Becker taasi oo ka dhigtay in 3-1 ay ku hogaaminayso kooxda Manchester City. Jack Grealish oo ahaa xidiga burburiyay difaaca Liverpool ayaa ugu dambeyntii helay gool u qalmay daqiiqadii 74 iyadoo kubadaasi uu soo farsamay xidiga reer Belgium ee Kevin De Bruyne uu sameeyay caawintiisii 99aad ee horyaalka Premier League dalka Ingiriiska. Kevin De Bruyne ayaa noqday ciyaartoyga shanaad ee ugu caawinta badan horyaalka Premier League dalka Ingiriiska waxaana ka horeeya oo kaliya 4 ciyaartoy. ciyaartaasi ayaa ku soo dhamaatay 4-1 ee guusha ku raacday kooxda ka arrimiso Etihad Stadium ee Manchester City oo dib u soo nooleysay hamigeedii ahaa inay soo qabato kooxda Arsenal 4 rikoor oo laga diiwaangeliyay kulankii xiisaha badnaa ee garoonka Etihad Stadium ee afka ciida loo daray kooxda Liverpool waxay u ahayd ciyaartii 8aad ee Premier League ee laga soo badiyo iyagoo marti ah xil ciyaareedkan waana guuldarooyinkii ugu badnaa ee ka soo gaaray garoomada tan iyo xil ciyaareedkii 2014-15 Liverpool oo gool laga hormartay ayaa laga badiyay waana markii ugu horeysay ay sidaani kaga dhacdo horyaalka Premier League tan iyo bishii Febraayo 2021 Reds ayaa laga badinin 44 ciyaarood oo gool la hormartay iyaga oo badiyay 22 ka mid ah 22 kalena barbara ayay galeen intii uu hogaaminay macalinka reer Jarmal ee Jurgen Klopp tababarahan ayaa Manchester City ka dhalisay Liverpool 30 gool oo horyaalka Premier League waxayna City tahay kooxda goolasha ugu badan ka dhalisay Reds tan iyo waqtigaas iyaga oo 11 gool dheer ah kooxda ku soo xigta kaliya 4 jeer ayay Liverpool toogatay goolka Manchester City waana tiradii ugu yareed ee laga diiwaangeliyay horyaalka Premier League tan iyo
Sebtembar 2011. Labadii ciyaartoy ee sababta u ahaa guuldaradii soo gaartay kooxda Liverpool, inkastoo ay kooxda oo dhan liidatay, haddana labadii difaac ee dhinacyada Andre Robertson iyo Alexander-Arnold wixii ay ku sameeyeen Riyad Mahrez iyo Jack Grealish. Labada ciyaartoy ma aynan soo bandhigin ciyaar wanaagsan ee kooxdoodii ciyaartooydooda garab ay ku siin kareen. Xidigii garoonka Jack Grealish ayaa gool dhaliyay, mid kalena caawiyay, waxa uuna sidoo kale sameeyay badbaadin cajiib ah isaga oo kubad uu Mohamed Salah goolka ugala baxay soo difaacay. Inkasta oo Julian Alvarez oo isku qiimeyn ahaayeen, haddana Jack Grealish ayaa noqday xidiga garoonka.